waxaa jirta riwaayad runtii aad caan u ah oo aad inta badan soo ka mid ah riwaayadaha samaysaan bisha barakeysan ee Ramadaan riwaayad waxaa jirta la yiraahdo dhaqan mi iyo dhal magaalo riwaayadaas iyada bal ka waran waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa markaad matalaysay riwaayadaas oo runtii noqotay mid aad u caan u ah waxyaabihii igu la yaabka badnaa maxay ahayd dadku ay inta badan ay ka soo falcelin jireen ama ay soo weydiin jireen waxay ahaayeen qaybta miyiga hibaa qayb intay leegbad miyi ka timi aad kaga timi markaad Hargeysa imanaysay ama aad jiliinka galisay markaas bad miyi ka timi marka wallahi riwaayadaas dadku aad bay uga mahad sheegteen anaga laftarkaygu waxaan jeclay inaan bulshada la wadaagnaba noo suurta gashay markaas wasaas waxyaabihii igu la yaabka badnaa waxay ahaayeen in tuugo layga dhigo kale dadana layla daba galayba dadku ana mararka qaar ilowsan oo lagu yiraahdo ma inta dahabka xadayba oo mar dambe uu fahmo ama soo gocda hadalkii riwaayadii baad jeedaan marka mar labaadna nagu celinay bulshada waxaad leedahay Soomaha waaqac dhabta kama turjumayso hadba xaaladda aan ku sugnay markaan jilliinka sameynayno horta qofka bini'aadanka dadku markii mar walba arkaan dabeecadiisa iyo yani way cabiri karaan wayna way sheegi karaan laakiin mar walba ma aha xaaladda ku sugan tahay inaad adigu aad ka hadlayso soo gudbinaysid waxa weeyaan inaad bulshada mar walba waxa ka dhex taagan aad soo gudbisid ama sidii looga gudbi lahaa ama waxyaabaha ka dhex taagan aad mar walba indhaha bulshada tustid marka anaguna bulshada isku wada waqti kuma jirno waa run wakaas aad baad mahadsan tahay